السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آدي أدبين سلام يا دمانتين به وحنيكو سلام يا سلامة إسلامك. عشر كينا هران سوق هذاني وحنو قد بينا عشر كان كحية وحنو نقضونا عشر كيني هوري وحنكو سوق هذاني إن كو هوري سأوي هاي أ ب ت ث ش ح خ waxaana sidaa ka dhigaysaan idin sheegay waxa weeyaan xarako waxaa loo yaqaanaa kuwa hadda goobintaan ku dhigay. waxaa jirta eray kale oo loo yaqaano dhibcuhuna waxa weeyaan kanaan hadda aan kugu tusi doono. dhibcuhuna waa noocaas weeyaan. kuwaana dhibcaa loo yaqaanaa. waxaa jira iyadana oo aan doonayaa inaan ku tuso kuwaana waxaa loo yaqaanaa xuruuf. marka xarafku waa ka dhibcihiisa waa waxan, xarakadiisa waa waxa. marka lagu leeyahay tusaale ahaan xarafkan intee dhibcood buu leeyahay, waxaad u jeedaa in uu leeyahay 3 dhibcood. haddii lagu yiraahdo intee xarako buu leeyahay, haddii lagu yiraahdo intee xarako buu leeyahay, waxay noqon doontaa xarakadu waxay ku qarsoonayaa kordhiga ama hadda waxaa inoo muuqda ee loo yaqaano kordhiga. markaasaa oo kala saar. waxaan soo qaadanay casharkan horaan soo qaadanay. waxaan u soo dhiganay a iyo ba iyo ta iyo tha iyo ja iyo xa iyo kha iyo da iyo ra iyo da kale ra iyo za iyo sa iyo sha ilaa aynu gaarsiinay meesha ugu dambeysa oo ah xarafkan oo ya ah. maanta waxaan qaadanaynaa casharkiisa ku xiga. casharkiisa ku xiga waa kan. isaguna casharkii buu eegyahay, laakiin maanta wixii sare ma leh, meeshii sare ma leh. qaab kale ayaanu ku dhawaaqaynaa, isagana aynu fiirino insha allahu tacaala. waxaan ku dhawaaqaynaa waxaan ugu dhawaaqaynaa i baan ugu dhawaaqaynaa. maanta hoos dhig weeyaan ama alif la hoos dhigay ama alif la hoos reebay, labadaba waa la dhahaa. carabiga waxaa lagu dhahaa igisra i. tanna waa maxay? waa bigisra b. tanna waa tigisra t, tigisra c, tigisra g, xifisra xi, haye xifisra khi, difitxa digisra d, digisra d, regisra ri, haye nooc saasoo kale lagu dhawaaqayaa. marka ilaa iyo meesha ugu dambeysa saasaa loo wadayaa. regisra ri, digisra c, sikisra c, shikisra shi, sikisra c, tigisra d, tigisra d, digisra d, cigisra ci, qifisra qi. qaabkaasaa lagu dhawaaqayaa ilaa meesha ugu dambeysa. haddaba carabi ahaan weeyaan. inagu carabi iyo soomaali midkoodna dooni mayno. waxaan rabnaa in qaabka aan ugu dhawaaqayo aad ugu dhawaaqdid saasna aad ku fahantid. haye waxaan dhahayaa tan i baan u aqoonsanayaa. i weeyaan. i b t ث ش ح
خي دي ذي ري زي سي شي صي طي ضي ضي عي غي في قي كي لي مي ني وي هي ي قرو ضلعه سيان وارقه هي ي ان waxaad aragtaan maanta xagga hoose ayuu ku leeyahay wixii calaamadaas hoose waa muhiim waxayna muhiim u tahay marka in aynu kala saarno aynu doonayno marka aynu aragno ya dusha sare ku leh iyo ya hoosta ku leh tan hore waa ya tan hooste waa yi weeyaan markaa sidaas ogsoonow hal mar baan kusoo celinayaa si casharka aad u fahantid i bi ti thi ji xi khi di ذي ري زي سي شي صي ضي 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 عي غي في قي كي لي مي ني وي هي ي waxaa isku dayaysaa adigoo oon casharkan xifdin oo akhrin oo korka ka garan casharka kale ha u gudbin casharkan haddii aan ku siiyo oo cashar kale aad xifdidid waxaan kaa doonayaa inaad si fiican oo tafatiran oo qurux badan aad korka uga wada qabatid dhammaantiisba kabacdi markaad istiraahid alla ilahay waad haysaa ayaad qaybta su-aalaha u imanaysaa qaybta su-aaluhu waxay ka bilaabanaysaa qaabkan waxaad noo sheegtaa waxaa la yidhaahdo kan isku day in aad pause aad siisid kabacdina markii aad rabtid aad garanaysid aad sheegtid oo aad codkaygan markaa jawaabta aad dhegaysatid kaa haddii aad ku tilmaamtay ri waa ku saxan tahay haddii kale waa kaa khaldan tahay ee ku noqo casharka xarafkan ayaan kaa doonaya wax lagu yidhaahdo xarafkan haddii jawaabtu ay tahay shi waa ku saxan tahay haddii aanad shi aqoonna waa khalad waxaan kaa doonayaa waxa lagu yidhaahdo xarafkan haddii ay tahay jawaabtu i waa ku saxan tahay haddii aanad i u aqoon waa kaa khaldan tahay aan u tago xarafkan haddii jawaabtu ay tahay ci waa ku saxan tahay haddii aanad odhanna waa kaa khaldan tahay aan u tago xarafkan haddii jawaabtu ay tahay qi waa ku saxan tahay haddii aanad odhan laakiin waa kaa khaldan tahay waxaa noo sheegtaa xarafkan haddii jawaabtu tahay wi waa ku saxan tahay haddii aanad odhanna waa kaa khaldan tahay xarafka ugu dambeeya waxaa noo sheegtaa kan haddii jawaabtu tahay waad ku saxan tahay haddii aanad odhanna waxaan jeclaan lahaa inaad dib ugu soo celisid dhammaantiin ba aad iyo aad baan salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh